سود هذا عيد مبارك عيد مبارك أمد الصومالية مالو بيتشوك سود هذا دمانتين شرقراي وقارسية إن شاء الله هو عيد بس إنه كهالله أمد الصومالية هاي سعفيدان لنا هاي وعويا واحد سياسة كما هالله إنه سود هذا دمانتين شرقراي وقارسية مبارك ياسن كويدا مبارك كعيدا سود هذا دوانتين شرقراي وقارسية شرقراي قبل لا يرفع النظارة يا عيد سود هذا عيد عاوة شرقراي وقارسية عيد عيارة بري أنا عيد يوروب دتك تشوجا بري عيد نوتاي ما أنت وان صومرين الله نجا أقبلت كوي ما أنت أفرانا وصوماليا يودم هذا درس كله أحمد سودو شرقراي أول عيدا كهالله سياسة كما هالله إنه ومد الصومالية هي سعفيتو ومد الصومالية لما همليها هالكن أنا وقدر يا أنا حلوان أحمد نور شيخ عبد الله وشو ودن كبوكرستي مقالة بوكرستي ودن كرومانيا سودو هذا دمانتي شرقراي وقارسية كرو غاضة قارسية عيد مبارك دمان ومد الصومالية ميلو بيشوكتو هذه سود ومانتين شرقراية عاوة عيد بس إنه كهالله عاوة سود ومانتين شرقراية وقارسية عيد فرحة لقى بصدق أمد الصومالية ميل بيت شوغان سود هذا شرقراي أحمد قدبي كرنا وغاده كر سودو علي عيد علي عاد سودو مقال الله سبحانه أنا بريبان عيدنا إن شاء الله يوروب دتك تشوجا ورحل ديوان عيد وناكسن صاحب رحل ديوانكي هذه قبل يرتعني نوقع علنا يا سودو هذا دمانتي شرقراي كرو قاضة عاو عيد بس كهذا واحد سياسة كما هالله إنه سودو هذا دمانتي شرقراي عفيس يا مسامح أمد الصوماليات ميلو دو تشوكتو جماعة الله يسسارو هراي الله صعدو. We are one country, one people, one religion. We are Somalia. We are one from Ras Kamboni to Lowyacado. We are one country, one people, one religion. Our sovereignty is untouchable. معناه
لما منتا منتا our territorial integrity and our sovereignty is untouchable. waa ogtiin walaalayaal madax banaanida qarannimo dhul iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed cid kala dhantaali karta ma jiro haddii Faransiga uu yimaado Faransiga Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan uu ka xoreeyay wadanka ciid mubaarak dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto shanta Soomaaliyeed sharafa ku ciidan sanadkiisa kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa nabad iyo barwaaqo iyo in cudurrada Ilaahay naga qaado ها gabadha waan ku celiyay daawo gabadha waan ku celiyay daawo ma dhamaanaysa caawo gabadha waan ugu celinayaa ka waran bal Soomaaliya sidee looga ciiday maanta annaga berri waaye insha Allah كرنا وغاضة كر كرنا وغاضة كر كرنا وغاضة كر كرنا وغاضة كر وعيد مانتا وهمبلية عيد يا سلامها
marka soo dhawaada ummadda Soomaaliyeed sheer gareeyo gaarsiiya wax kale kama hadlayno siyaasad kama hadlayno cafis iyo maxsaamax ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto si wanaagsan loo ciido soo dhawaada dhamaantii sheer gareeyo gaarsiiyo korna ugu qaada ramanta korna ugu qaada kor waan bilaabaynaa كرنا وقاعد عيدة عاوة عيدة لما أنا مد الصومالية هل كان عليان همبليه وقدر يا أنا مشرح اللبان هير فدرال أحمد نور شاه عبد الله قبل هذا شبلان مركز سود هذا دمانتي شرقرية وقارسية سود هذا دمانتي شرقرية إلهي سبحانه وتعالى وحان مد الصومالية وقبر ينا نبتقليه برواقه يبش إنه إلهي سبحانه وتعالى عيدا كلا ونبض نقول جارسيو يعذر كانوا إنك قاضي من نبض أمد الصوماليات وذا شركة أمد الصوماليات from براس كامبوني تلوي عدو ومقدس وعلى ما تارتان صوت هذا شرقرية إنه شرقرية مانتا كمانتا يا مانتا يا رمانتا يا مانتا يا رمانتا الله يا رمانتا هادي سو دواده دمانتي شرقري وان بلابينا سو دواده وان بلابينا
soo dhawaada sheergareeya gaarsiiya inoo sheergareeya okay markaa waan bilaabayaa bismillah soo dhawaada dhammaantiin sheergareeya waxa weeyaan hambalyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto dhanka kale inaan u gediyo waaye soo dhawaada dhammaantiin sheergareeya waa xildhibaankii musharaxii isbedeldoonka jubbaland anigu waxaan ahay musharax isbedeldoonka jubbaland isla markaan u tartamaya kursiga magaalada kismaayo heer federaal axmed nuur sheekh cabdullaahi ummadda soomaaliyeed halkan waxaan hambalyada ciidda aan oga dirayaa maanta waan soo marayn allah naga aqbalo subxaanahu watacaala ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto hambalyadaas ciidda ayaan hawada usoo marinayaa ummadda soomaaliyeed meel walba oo ay caalamka ka joogaan hambalyadaas ayaan usoo marinayaa hawada waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga aqbalo bishii barakeysneed ee rabadaan ee aan soo gudanay tan siyaasad ma aha waxa weeyaan waa hambalyo ku socota ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan mucaarad iyo muxaafidba waa la walaaloobaa markaan oo kale marka ciidaha iyo rabadaanka iyo xajka iyo xilliga acmaalka wanaagsan lagu jiro waxaad ogtihiin rasuulka sal allahu alayhi wasalam iftaarka in la afuro oo maaragtay dadka muslimiinta ay afuraan iyaga oo acmaal fara badan soo sameeyey bishii barakeysneed ee rabadaan ama bisha xajka marka laga soo baxo labadaas ciid baad leedihiin buri rasuulku sal allahu alayhi wasalam labadaa ciid ayaa ciidihii jaahiliga laydinku bedelay ayuu yidhi marka muslimiintu labadaa maalmood waa inay farxaan waa inay ciidaan waa inay cayaaraan ummadda soomaaliyeed hambalyadaas ayaan caawa halkan uga soo jeedinayaa anigoo axmed nuur sheekh cabdullaahi xildhibaan u tartamaya heer federaal magaalada kismaayo ama goboleedka jubbaland dhinaca kalena waxaan ka mid ahay anigu isbedeldoonka jubbaland ama madaxda isbedeldoonka jubbaland caawa haddee wax siyaasada kama hadlayno siyaasaduhu waxa weeyaan marka la afuro oo maaragtay la ciido oo kabacdi weeg ama laba weeg kabacdi insha allahu iska bilaabmi doonaan siyaasadu waa waxaan ku shaqeyno oo dhiiggeenu ku shaqeeyo marka laakiin maanta waxa weeyaan tan waxay khaas u tahay hambalyada ciidda berri insha allahu yurub baa laga ciidayaa iyo waqooyiga america waanu hambalyeynayna dadkii maanta ciiday soomaaliya iyo waddamada deriska la ah sida etoobiya iyo kenya soomaaliya magaalooyinka laga ciiday waxaa ugu horeeya magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya magaalada hargeysa caasimadda labaad ee ummadda soomaaliyeed iyo caasimadda saddexaad ee ummadda soomaaliyeed kismaayo magaalooyinka kale laga ciiday waxaa ka mid ah baydhabo gaalkacyo garoowe boosaaso qardho beledweyn bardaale garbaharey sida naloo soo sheegayo dhuusamareeb jawhar magaalooyinka soomaaliya oo dhan ayaa laga ciiday boorama banaan baa lagu ciiday aad bay maaragtay reer boorama waa dad aan jeclahay soomaalinimadku ay ku weyn tahay calankaa shanta geesle ayaa aada ugu weyn marka waan salaamayaa dadka burco iyo meesha la yihahdo hargeysa boorama meesha la yihahdo saylac dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto dhoobley raskamboni baar dheere dhammaan ummadda soomaliyeed halkan hambalyadaas ayaan la qaybsanaynaa sida kale alxamdulilah waddanku waa nabad weeye wax dhibaato ah kama jiraan kolley insha allahu cudurka coronavirus awgii ayuu adduunku hadda u yar xirxiran yahay laakiin insha allahu way furmi doontaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyada ciidda hala ciido guryaha lagu tukado sida maaragtay maadaama cudurka uu socdo maaragtay caruuraha meelihii lagu ciidi jiray iyo wixii ma jiraan kolley hadda yurub annaga meelaha aan joogno meelihii baagaga ay dadka carruurtii la geyn jiray way iska furan yihiin laakiin meelihii lagu ciyaarayay iyo wixii baa xiran laakiin qofku ilmihiisa wuu kaxaysan karaa beeraha maaragtay wuu geysan karaa sawirriya wax noocaasi wuu kusoo geli karaa dhulkuna maaragtay aad buu u qurux badan yahay xilligan roob baa xalay oo dhan da-ayey waddankan bisha shanaad iyo waddamada waqooyiga ku yaalla oo dhan waqooyiga yurub iyo xataa barigan yurub oon anu hadda joogo oo romania ah waddamada albaabka laga soo galaba ah bawaabatu oraba macnihii waxa weeye waa maaragtay xilligan samarkii baa la gelayaa
kuleylku maalmo dhawood 30 iyo wax uu gaaray marka qurux weeye xilligan oo kale roob baadaa dhulku waa cagaar intii maaragtay lockdownka lagu jirayna beerihii bay qurxiyeen oo hagaajiyeen oo maadaama ay shaqaalihii bas joogeen oo dadka iyo laga ilaaliyay wadamadaana waxay kaga fiican yihiin wadamadii anigu hadda aan ka imaaday booliis ayaa macnay boosto ku leh oo xarun ku leh meeshan baagaga aad baa loo ilaaliyaa in maaragtay dhirta la gooyo iyo in maaragtay doogga lagu dul socdo wadooyin bay u sameeyeen iyo meelo lagu ciyaaro oo gaar ah laakiin inaan doogga la dul marin marka waa xeerar ay soo saareen booliiskana ilaaliya runtii hadda maalin dhow waxaan arkayay nin ay la soo galay oo laga saarayo oo laleeyahay ka bax niman baa bahalo dhugdhugley camal oo laba taayir leh ayay ku ordayeen booliis hal daqiiqay xoog kugu dhaafayaan meel maalin dhaweed aan maaragtay aan ku qaadanayay marka runtii aad baa maaragtay wadamadan xagga beeraha baaga garden barkiska ay aad ugu fiican yihiin carruurtu kale marka berri oo kale geysta insha allah qofkii carruur ku haysta meelaha kan fariintaas waa fariinta labaadna waxa weeyaan aan halkan ummadda soomaaliyeed ooga farayo siyaasadaha lagu kala duwanaaday laakiin waxaa la rabaa maanta oo kale in la iscafiyo ummadda soomaaliyeed inay iscafiso inay isu laabxaanaato inta maaragtay ciidda laga gudbayo waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa dagaalada sokeeye ee qabaa'ilka in la joojiyo meel walba ay joogaan meel walba oo dagaal sokeeye laga wado dhiigga muslimku mar walba isagoo xaaraan yahay ayaa haddana bilihii 4 bilood ahaa ee haddana xaaraamta ahaa maaragtay bisha shacbaan ramadaan bisha ku xigta iyo rajab intaas waa 4 bilood ee la xarimay in la dagaalamo marka walaalayaal dagaalku wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho ummadda soomaaliyeed waxaan u baaqaynaa maaragtay in nabadgelyada la sugo waddankeenu iyo shanta soomaaliyeedba waa dad walaala oo muslimiin ah oo isku diina isku luqada isku maaragtay af ah isku dhaqan ah marka sabab hadda dagaaladii sokeeye loo sii wado ma garanayo anigu dagaalada iyo hubka waa in la dhigaa insha allahu waad la socotaan dadka maanta oo kale masaakiinta waa in laga farxiyaa qofkii maaragtay wax ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala bahashan cudur baa caalamkii aafeeyey marka cudurkaas inta uusan maaragtay dadkii faraha badnaa iyo dhaqaalihii uu la degay diyaaradihii ma socdaan marka dad fara badan oo baahi ay haysaa jirta marka qofkii jeebkiisa wax ku haya ha siiyo waxa weeyaan inkastoo hadda waddamadan yurub qaab hadda wax loo dira anigu ma garanayo sababtay tahay bangiyadiina waa xidhan yihiin xawlaad iyo wax la ogol yahay ma jiraan laygu yiri marka maaragtay arrimahaasuna way jiraan laakiin xataa dadka gudaha jooga dad xoogaa nafaqaystay baa jira waxaan rajaynaynaa inay dadka masaakiinta sida barakacyaasha inay maaragtay u gargaaraan haddii ilaahay yiraahdo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ciid mubaarak ayaan leenahay marmarna waxaa fiican dadku inay farxaan falidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala marka hala farxo hala cayaaro hala ciido waxa weeyaan islaamku ma diidano laakiin waxaa la diidayaa carruurtaada inaad ka farxiso lama diidayo inaad adiga carruurtaada ciyaartaan lama diidayo laakiin waxaa la diidayaa waxa xun in la sameeyo sida maaragtay aroos isku sii dhexdiisa oo lays dhex ordaayo iyo xaflado maaragtay inkastoo hadda xafladihii iyo dadkii kulankoodiiba ay aad ay u liitaan oo hadda marka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ciid mubaarak baan leenahay meel walbood joogtaan waxa weeyaan marmarna nala daawada maaragtay ciidda iyo maaragtay fantaasiyada aan ugu talagalay soo dhawaada Maria Manta, Iara Manta, hello, Iara Manta. Sorry.
soo dhawaada sheergareey ciid mubaarak dhammaantiin soo dhawaada ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan السلام عليكم يا عيد مبارك سو dhawaada ummadda Soomaaliyeed meel wada joogtaan ba soo dhawaada dhamaantiin sheergareeye عيد مبارك anaga berri baan ciidaynaa dadka Yurub jooga iyo waqooyiga Ameerika waa berri ciida maanta waan soo mareen Allah naga aqbalo kuwii maanta ciidayna Allah ka aqbalo شرقرية أنا شرقرية فرحان سودو عاوة عيد مبارك بس عاوة سياسة لك ما هالله اللي بانكو عاوة كما هالله واحد سياسة وعويان ومد الصومال هاي سعى فيسان لنا هاي
annagu hadda berri baan ciidaynaa maadaama yurub aan joogno waxa weeyaan kuwii maanta ciidayna khayr weeye 29 maalmood bay ku soomeen khayr weeye annagana 30kii baan dhamaystiray waa khayr weeye waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed hambali Allah meel walba ay joogaan hal is cafiyo siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa laakiin hal dhinac baynu u soconaa insha Allah waa in la ilaaliyo midnimada iyo qarannimada iyo madaxbannaanida ummadda Soomaaliyeed we are one country one people one religion soo dhawaada dhamaantiin share gareeyo gaarsiiya فرحان أحمد عثمان إيجا ورن بالساوث أفريقيا إذن كلفتين بريات عيد إنسان ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هاي إذن كبد بهذه عذرك هذه وانك سلامة يا أذر شرقرية عاو حوغا يربينو كهد لينا وحير ماركتي عيدة كسابسا عاو حويان هل يسعفيه قلبيها الله يسفره غريها لغو ماركتاي لغو ماركتاي dadku maaragtay ha ku ciyaaraan guryahooda hadii la heli karo masaajid kulay la isma ogole laakiin guryaha la iskaga tukado kulayba sanadkan iyo sanadkii hore aniga way ii kala ahayd waayo sanadkii horena familigan la ciiday la soomay maaragtay Soomaaliya ma sha Allah haddana waa ka soo Umar soo dhaw sheergara inaadeer soo dhaw gabar sharaf laatay Soomaaliyeed عفيس يا مسامح dadka Soomaaliyeed meel walba joogtaan عفيس يا مسامح ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan waa in la iscafiyaa waa maalmaha maaragtay 30 days ma sha Allah waad dhamaysan صح سليقة adigu waxa weeyaan maanta waad Soomaaliyeed bari waa ciid aniga waan Soomaaliya maanta bari waa inoo ciid insha Allah dadkeena Yurub jooga South Africa iyo wadamada caalamka islaami oo dhan marka laga reebay Djibouti Soomaaliya wadankeenu hooyo iyo qaybo kamid ah galbeedka Afrika ayaa maanta hada ayagana khayr baan u rajaynaynaa dib malaha inagana maanta Allah inaga aqbalo 30kii baan dhamaystiray ilaa xilligan wax bisha arkay xataa mid la saanood ka soo hadlayay caawa xataa buurtan taagnayn buu yiri wax xataa maantadan arkay lama hayo laakiin kullayba islaamku wuxuu ogol yahay 30 maalmood in la dhameystiro hadii la arki waayo xataa maaragtay waa hawayaan dadka muslimiinta waxay xaq u leeyihiin inay afuraan markay 30 ka dhameystiraan hadii la arki waayo soo dhaw Saciido Xasan Jeelle inaadeer soo dhaw gabadha Soomaaliyeed wadaniyada soo dhaw sheergare oo gaarsii ciidan ka hadlayna caawa siyaasad kama hadlayno insha Allah waa hambaliyada ciida ummadda Soomaaliyeed oo dhan hala gaarsiiyo waxa gadaal waan salaamaya gadaal dadka daawan doona iyo dadka hadda daawanaya anaga hadda waxaan lagu yaqaanaa inaan dadka Soomaaliyeed dhiiri gelino baraarujino maadaama siyaasiyiintii iyo dadkii mustaqbalka aan nahay ee u taagnaa maaragtay qarannimada iyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan from Ras Kamboni to Lawi Cad qof walba waa inuu calankiisa soo qaataa dadka wadaniyiinta Soomaaliyeed qof walba calankaaga soo qaado qof walba waa inuu calankiisa soo qaataa qof walba calankii Soomaaliya waa inuu soo qaataa soo dhawaada sheergareeyo gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed meel way joogaan shanta Soomaaliyeed waa isku mid maanta halka calan baa inaga dhaxaysa walaalayaal waka haddaad Jigjiga joogto haddaad Laascaanood joogto haddaad Boorama joogto haddaad Kismaayo joogto haddaad Muqdisho joogto haddaad joogto Gaarisa waka haddaad joogto Djibouti marka soo dhawaada dhamaantii sheergareeyo gaarsiiya walaalayaal dumarkii caruurta ciroolaha banaanka hala geeyaa la leeyahay waka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed مال العين نسينا إذا ما انتهينا عيد مبارك
سعيدة صلوا سعيدة صلوا سعيدة صلوا وانكسوق وانا يا عيدة عروت هذا السلام هدي إلهي رادو سعيدة صلوا عروت هذا إن شاء الله فرحة نلقى يبسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة حسن جيلة عيد مبارك أيام كلنا هاي ما أنت واد صومانيد أديك إيو علمها marka ciid mubaarak bari baynu inagu hadaan Yurub joogno aynu sugada wax yaraan codadkan damiye marka si ummadda Soomaaliyeed ay ku maqasho soo dhawow walaashay ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeed afis ayaan weydiisanaynaa dhamaan mucaarad iyo muxaafid maanta oo kale waa ciid waa in la iscafiyaa marka ummadda Soomaaliyeed iyo caruurtaada Allah ku barakeeye halkan maxaa yaad ka salaami lahayd yaad maaragtay hambaliyada ciida soo dhawow walaal live baan ku jiraa ha dadkoo dhan la hadalsan waa ciida bes wax siyaasada caawa kama hadlayno markaa ku soco عيد وناكسن بالله عيد وناكسن دمان أصحابت ومطط الصوماليات ميل والبقيت جوغان على عيد وناكسن مدحدين أبوه يسعيدا كينا صح جيت هوري جوغا شقada wanaagsan noo hayo waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa idin ognahay guuleys tabaan idin leenahay صح iyo qolada coronavirus ka taqaatiirtayna ayaga naftigooda way hayaan hool wanaagsan bay noo ayagana hambaliyaan leeyahay ciida صح waxaan ku sheegaa walaalkooyo kulli duuta ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay qarankiina garab istaaga ciid wanaagsan ciideeda bashbash iyo barwaaqo iyo cimri dheer iyo caafimaad dad Ilaahay ugu gaarsiiyo adigana walaalow ciid mubaarak baan ku leeyahay waana mahadsan tahay aad iyo aad caruurtaada annagana halkan waxaan leenahay caruurtaada farxad kula ciid damaashaad kula ciid inkastoo iswiilan hadda adigana sidoo kale caruurtaada xaaskaaga kula duuta farxad iyo bashbash ku ciid walaalkay waa hadda anu isku meel ma joogno laakiin waan wada hadalay way fiican yihiin berina way ciidayaan ma sha Allah Norway bay joogaan marka anu wadan kale aan ku hey waka ayagana hawada umari khayr baan isku ognahay waxaan soo qabanayaa ninka la yiraahdo Faadma Wadani baan soo qabanayaa ciid mubaarak Faadma Wadani haye gabadha la yiraahdo Saciido Jeelle waan ku salaamayaa dadka kale aan fursad siinayaa waad mahadsantahay walaashay qaaliga gabadhaas waa wadaniyad Soomaaliyeed waad mahadsantahay walaal haye soo dhawow waxaan soo qabanayaa gabadha la yiraahdo Faadma Wadani ayaan soo qabanayaa Faadma Wadani ayaan soo qabanayaa insha Allah siyaasad ma aha caawa waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa Ayni Cabdullaahi soo dhawaada dadkii Soomaaliyeed wadaniinta oo dhan ayaa maaragtay soo galay boqor ayaan la soo dhawow markaan waxaan soo qabanayaa Faadma Wadani ayaan soo qabanayaa si maaragtay iyadana ay hambaliyada ciida ummadda Soomaaliyeed ay halkan ooga tabiso caawan waan idin sheegay waa hambaliyada ciida iyo in la iscafiyo siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa laakiin maanta oo kale waxaa la rabaa in la midoobo ummadda Soomaaliyeed inay u midowdo fantasiyaha ciida iyo maaragtay wanaaga iyo maadaama bishii barakeysneed ee Ramadaan dadna 29 bay soomeen Allah u barakeeyo annagana 30kii baan buuxinay waqooyiga America Canada Mareykanka Yurub oo dhan ilaa wadamada Carabta waa ogtihiin Soomaaliya meelo kamid ah laga ciiday Kenya meelo kamid ah marka Djibouti waad la socotaan waxay raacday wadamada caalamul islaami oo dhan bay raacday marka dib ma laha hal maalin dib ma laha iyagana dambi mayna sameeynin walaalaha Soomaaliyeed inagana dambi mayna sameeynin soo dhawow Faadma Wadani waan ku soo qaban haduu iika soo galo walaashay qaaliga soo dhawow ciid baana ku leeyahay wanaagsan adiga iyo caruurtaadaba farxad iyo nabad iyo barwaaqo ku ciid hadii Ilaahay yiraahdo
waa wixii intaa ka dambeeyana dadka soomaaliyeed baad halkan ka salaami waana kusoo wacayaa marka hambalyadan waa ciidda wax kale oo aan gelayna ma laha waxa weeyaan dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in laysu soo dhoweeyo markaanoo kale in la iscafiyo madaxdu inay iscafiso dhalinyarta soomaaliyeed inay iscafiyaan in maaragtay ummadda somaliyed waxaan ugu baaqaynaa meelaha dagaalka qabaa'ilku ay ka jiraan in maaragtay ilaahay dartii loo joojiyo bilihii xurmada lahaa ayaa lagu jiraa marka soo dhawow gabadha layihahda faadimo wadani waa wadaniyad soomaaliyeed oo joogta okay waxaan u malaynayaa she doesn't answer the call marka cayni cabdullaahi ayaan soo qabanaynaa gabadhaa soomaaliyeed iyo suleekha cabdullaahi iyo dad fara badan baan soo qabanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo soo dhawaada dhammaantiin sheergareeya cayni cabdullaahi baan soo qabanaynaa marka iyadana maaragta inay dadka soomaaliyeed halka kan ay ka salaanto sweden iyadana ay nooga waranto sida looga ciiday waxaan rajaynayaa inay maanta ay soomanayd sidaydoo kale waan ku salaamayaa gabadha la yidhaahdo ciid mubaarak baana kuleeyahay cayni cabdullaahi soo dhawow walaashay dadka soomaaliyeed salaan ciid mubaarak dheh caruurtaada iyo familigaaga yaad salaami lahayd ummadda soomaaliyeed maxaad ugu baaqi lahayd soo dhawow ciid mubaarak dhammaantiin ummadda soomaaliyeed meel walba joogto soo dhawow cayni cabdullaahi kolley haddaad afurteene soo dhawow ciidda maxaad ka dhihi lahayd cayni cabdullaahi okay gabadhaa way mashquulsan tahay waa yahay waan gartay dhib ma laha waxaa laga yaabaa walaasheen inay mashquulsan tahay waana salaamaya ciid mubaarak ayaana kuleeyahay ninka la yihahdo waxaan soo qabanayaa marka kan farxaan ayaan soo qabanayaa farxaan axmed cusmaan farxaan ayaan soo qabanayaa axmed cusmaan ninka dhalinyartaan soo qabanayaa si maaragtay uu halkan dadka uu salaamayo uu uga soo gudbiyo okay wacalaykum salaam okay cayni haddaad rabto iisoo baaq waan ku soo qabanayaa insha allahu haddaad mashquulsan tahay dhib ma laha waan idin salaamayaa dhammaantiin ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan soo dhawaada dhammaantii shargareeya gaarsiiya okay ninka la yihahdo mas qabanayo laakiin waxaa isoo wacday gabadha la yihahdo faadimo wadani baan ku celinayaa marka iyadaa isoo wacday marka faadimo wadani cayni gadaal baa lagaa soo qaban doonaa insha allah hay faadimo wadani soo calaykum salaam soo dhawow salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh faadimo wadani ciid mubaarak ayaan ku leeyahay kullu caam wa antum bikhayr arrintan waxa weeyaan waa ciidda iyo fantasiyaha dadka muslimiinta meel walbay joogaan marka ku soco walaashay qaaliga wax siyaasadana kama hadlayno madaxda qaranka iyo mucaaradka muxaafid iyo mucaaradba waxaan leenahay ciid mubaarak ha loo tanaasulo ummadda soomaaliyeed dagaalada sokeeya hala joojiyo ciidda waxaa la rabaa in la iscafiyo kusoo dhawow walaashay qaaliga maasha allah axmedow anagu weli waa soomanahay ciid mubaarak tomorrow waa noo ciid alxamdulilah waxaan malaynaa ani adiga feri baa soonnay maasha allah waan soonnay soddonkii baynu soonnay aada iyo aad anigu haddee anigu 4 saacadood ka hor baan olwa maya kawdii bay ii tahay maya waxaan soomay 4 saacadood ka hor baan aan afuray maasha allah waa noo soo dhowdahay I think
saacadood baa anaga lafta loo haray ma 6 saacadood oo dambe kali marka hadda waagu ii bariyo oo weliba hal saac ay tahay baad afuraysaa laa xawla walaa quwwata illa billah oo qolada kaasii dambaysa maxaad u malayn oo Vancouver degan maanta Vancouver anaga maxaa kala nahay waa isku saacadaha ma soo ma saacad bay idinka sii dambeeyaan wax saas nagama dambeeyaan Vancouver waxaa 2 saacadood waxaa naga dambeeyo Toronto iyo Ohio ma way idinka horeeyaan Toronto way idinka horeysaa kuwaas naga sii horeeya macnaha laakiin qola idinka sii dambaysaa jira aaway Vancouver wax saas oo badan ma jiraan because waa 6 saacadood driver baa so there is no different a lot of different measure okay waa yahay ku soco ciida iyo hambalyada waxa weeye jazakumullah khayr barakallahu fiik aad baan kugu hambalyeynaya ciid mubaarak baan ku leeyahay ciid mubaarak Allah kaasiyo juhdi baad gelinayso maasha Allah tabarakallah halkaan ciid mubaarak waxaan ka leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan saqiir iyo kabiir oo ugu horeeyo madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maasha Allah ra'iisul wasaarahana maxamed xasan cali khayre oo shacabka Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed dhaxdhaxaadka Soomaaliyeed dhalinyarada islaantay anigoo kala ah oo Soomaaliyeed sax kuwa caloosha ku jira iyo kuwa adduunka joogo ciid mubaarak baan leeyahay kuwa mucaaradka iyo kuwa maxaafidka ciid mubaarak baan ku leeyahay igu ciida barwaaqo iyo bash caano iyo nabad ilaahay waxaan ka baryahayaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed iyo awoowada Soomaaliyeed durcad ilaahay qulubtooda inuu isu mariyo aamin mucaaradku wuu fiican yahay sometimes inuu wax dhiso mucaarad lama diido mucaaradka maartay in macnaha maartay laga soo horjeesto laakiin mucaaradku waxa weeye in wadanka hooyo mid laga wada yahay calankeena inaan difaacana mid laga wada yahay dhulkeena iyo badeena iyo biyeena mid laga yahay waxa weeye ninkii maanta uu arko in macnaha wax walba cilaaq ah xoogaa dadku ay ka fogaanayaan mucaaradka laftigiisa waxaan leenahay waa idin jecelnahay laakiin iska kaaya fogeynina because kuwa waxaa jiro madaxnimada aan la bilaabay lana dhameeyey maantana aan lay maqashiin karin because waxyaalaha qaarkood oo marka dhaha hayaan runtii maxaafidnimadanadii way broogaraysay waan ka tagnay kuwa badan oo mucaarad ah oo maxaafid aan ahayn baa jiro waxyaalo aan taabanin baan Faadumo wadani kor oga bax waxa weeyaan waa ciida ha taabanin hawlo kale maalin kale aynu ka dhiganaynaa waxyaabahaas ciida una ha dhaafin haddii ilaahay yiraahdo ciida nasteexaday ka mid tahay kelmadan afka iga qaban oo kaadi baaqaan u dirayaa waxay tahay ninkaan maxaafidka u ahaayo sax waxa weeye maxaafid ka wada noqda ciidiina iyo calankiina ra'yigaaga goonida waxa weeye waa lama taabtaan laakiin ciida hooyo iyo calanka hooyo waxa weeye waa lama taabtaan ku ciida farxadin calankiina hoostiisa ku ciida ciidiina korkeeda ku ciida ilaahay barwaaqo iyo bashbash ay ku waariyaan leeyahay adiguna waa mahadsan tahay adiga iyo caruurtaada iyo ehelkaaga waxaan idin leeyahay adna farxadin iyo liibaan ku ciid axmed anagoo fiican alxamdulilah barwaaqo iyo bashbash aad uga mahadsan tahay ciid mubaarak oo cafiya masaabax waad mahadsan tahay ugu dambeyntii maxaad ummadda Soomaaliyeed xilligan cudurkan coronavirus-ka maxaad ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqayaa waa mahadsan tahay wallahi su-aashaas waa muhiim aad bay weliba qaali iigu tahay waxaan ugu baaqayaa waxaan arkahayay xala maaragtay iyadoo muqdisho baambeyga ay wax garaacayaan dadkana daba yaacayaan dadku run maanta reality iyo runta weli mayna qaadanin marka kelmad baa iga fakatay baa wuxuu igu yiri Faadumo baambey waxa weeye group baan ahayn meel kuwada ciidayo kuwada sheekaysanhayo marka wuxuu yiri annagu meeshaan muqdisho waxaa lagama qoro meel public ahaan ka shaqeeya meel weyn oo shopping baa ka shaqeeya hal kun baa maalinkii daqiiqadii galayso kun baa ka soo baxayso maalin dhaweyta dad 100 qof ka badan baan line isla galnay inagoo dukaan galayno 10 markay kasoo baxday 10 baa la sii daynay saasuu lineka ku dhammaaday waxa intaasna loo maraya waxay tahay sidii cudurka looga fogaan lahaa
gobolka Axmed oo aan joogo Alberta oo taqaana Canada waxa weeye waa gobolka ugu sahlan oo ugu fiican Ilaahay baa ku mahadsan buu ku jiraa intaasna waxaan ku gaarnay dadaalka aan dadaalnay hadda familkayga hal qof hadduu baxo qofkaas uu baa shoobin anigu haddaan shaqo aado anaa shoobin soo samaynayo maaragtay afka waa in la xirto sanka markii la xirto kadib haddana waa inaad gloves wadato gloveskaada guriga waa inaadan la soo gelin banaanka waa inaad ku siibto tuurto oo meel weliba banaanka aadan dhigin qashin ku rido waxaa weeye ha la isxifdiyo adinku salaanta iyo dhunkashada joojiya halkaan baaqaan ku darayaa waxay tahay moor waqti aad isgeliso ood adigu dadka ka fogaato waa waqti caafimaadkaaga uu dabal dhaxaanayo moor uu dadka meeshuu ku badaya aad gashana waa moor jermiska aad soo qaadayso haddii layidhi haddaad moodaysaan in wax laydinka celinayo haddee dawladda waxaan ku yidhi xala wallaahi saan arkahayaa idhi wallaahi saan arkahayo waxa weeye caawa laba kun bay cudurku u qaadeen insha allah labaatan baa loo duugi doonaa markaasay dadka ila yaabeen maxaad insha allah u tiri xuseen baynax barre adeer soo dhawow ciidda ayaan ka hadlaynaa ciid mubaarak ayaan ku leenahay kulla caam wa antum bikhayr ku soco faadima wadani ciidda baan ka hadlaynaa adeer waan ka noqday ilaahow toobaa iri ilaahay baa u toobad keenay insha allah baa carabkayga u badan yahay marka waxaa weeye dadka naga صح dacwadu ha idin gaarto habaryartay aniga macaan oon adduunka ugu jecelahay oo magaaladan ila degan way iidaysaa ilma adeerayaashay ruuma oo labadii wiil oo isku dhintay ina kala dhaleen maanta way iidayaan cuntada isla karsan jirnay cuntada isla cuni jirnay mar walba isla wada joogi jirnay ilaah bay ka taa dadka ku galaynaysa jirin saa awgeed waxaa weeye ilma adeerayaalo nolosha iyo maaragtay iyo caafimaadku waa qaali caafimaadka aad buu qaali iyo maalkaana waa dilaa organka wuu dilaa sanbabadana hadduu maaragtay sanbabadana kaa gala khalaas weeye hadduu dhuunta kaa gala khalaas weeye hadday neefta ku xishooto khalaas weeye caafimaadku markuu wax ka qabasho leeya wax laga qaban karaa dhakhtar waxba kuuma qaban kara markuu lagu imaado dhakhtaroo dawladda waxba nooma qabana dawladda dacway wadaa ninkii dacwada ay geli weeyo waxa weeye dawladda waxba kama qabanaysa anigu dawladda waxaan leeyahay stress qaadin ninkii dacwada aad faafinaysaan ood mar walba maanta mikrofoonka la taagantihiin qaadan waaye oo neefta ku dhegtay haddee dadkaan ma haystaan wax lagu sabalay garaya marka dhowrfiil gildi baan leeyahay dawladdeena dadkeena wax ma maqlahayaan ilaa dhibaatadu iyagu ay taabad wax ma maqlaan dadku waxaa weeye waxaan leeyahay wax maqla intaad isteekeergarayn kartaanna isteekeergareeya intaad kala fogaan kartaanna kala fogaada kii xanuunsanna waxaan leeyahay walaalow qabrigaaga u baq oo adduunkaaga u baq oo hadduu dadka adigoo xanuunsan aad iska karantiisho ilaahay subxaana watacaala waxaa laga yaabaa naxdinta dadkaaga u naxday inuu ilaahay caafimaad kuu siiya axmada waa soo marahay intaa ka badan dambi جزاك الله خيرا أنا لفتيدو هذا عبار بان كوتشري مركا waxaan soo qabanayaa xuseen baynax barre oday Soomaaliyeed oo meesha ku jiray isagana inuu maaragtay hal kelimo ka yiraahdo marka waad mahadsan tahay walaasha qaaliga waana kullayba maalmaha soo socda maalmaha adduunka waa iska badan yihiin maalmaha kale baynu ka faa'iideysan doonaa ninka la yiraahdo xuseen baynax barre adeer xuseen baynax barre waa inaan soo qabtaa marka isagana halkiisa kelimo ha ka yiraahdo waa nin wax badan la socdo oday Soomaaliyeed weeye marka waan salaamayaa marka hore xuseen baynax barre adeer weeye kollayba nin ila siman ma aha oo nin adeer iyo inaan ilaahdo xurmo inaan siiyo weeye sida wiil ila ego kale ma aha waxa weeyaan xuseen baynax waa rugcadaa weeye Soomaaliyeed marka waxa weeyaan caruurtiisaan dee la ekaay marka waxa weeyaan inaan isku garab taaga ma aha marka xuseen baynax barre ayaan leeyahay adeer waan ku salaamayaa ciid mubaarak baan ku leeyahay adiga carruurtaadaba soo dhawow kelmada maaragtay ciidda ku saabsan wax siyaasada caawa ma gelayno adeer asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ciid mubaarak caafimaad ku ciid taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan rajeynayaa maanta inaad soomanayd aniguna waan soomanaa
dadka badankood Yurub iyo waqooyiga America waa la soomanaa Ilaahay inaga aqbalo subxaanahu wa ta'ala ciida iyo farxadda wax siyaasada kuma jirno caawa marka ku soco soo dhawow كل عام وأنتم بخير وصومنا مكان لا فرني ما شاء الله إيدن وبريتو أنا بوا بري يا وسيدن وبريتو دي لا يرادو هذه أول ليلة في شهر شوال maxaad ummadda Soomaaliyeed ugu baaqi lahayd nabadda iyo dadka dagaalada sokeeyay iyo inay hubka dhigaan Soomaaliya dhibta Allah ka saaro way dhiban tahay amiin cudur baajir colaad baajirta فتحات باسكتي وحياة بدن باجلوتك ولا هاون نقدان هاي سعفيان سنة كان سنة كسيلا وحنو كرجعنا تنميت كفي عنا نكون عيدنا هدي لا هيران آد بانك سلام يا حل الدنبا يكون تاعي خير بانسكوك نهاي هذه عروض هذا يفهم لي عيد مبارك أيان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله